hogaamiyaha cusub ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa amray in lacag dhan 9.6 milyan lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya taas oo la sheegay in lagu talagalay horumarinta mashaariicda Soomaaliya. Lacagtan oo ah lacag lagu qabtay airportka Muqdisho sanadii 2018 dowladii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ku jirtay qasanada bankiga dhexe, taas oo maanta la baxay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya kadib markii warqad ogolaanshaha uu ka helay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. hogaamiyaasha cusub ee Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya ayaa la sheegay in khadka taleefanka ay ku wada xiriireen isla markaana ay isku afgarteen in lacagtan la fasaxo, balse durba saacado kadib madaxweynaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa soo saaray amar uu ku sheegayo in lacagtan lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya si wax loogu qabto mashaariicda horumarinta Soomaaliya. dowladii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa horaan u sheegtay in lacagtani ay tahay mid loogu talagalay in lagu burburiyo dowladnimada Soomaaliya, waxaana ay xayirneed muddo ka badan 2 sano. si kastaba fasaxida lacagtan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii 4 maalin ka hor uu talada dalka ku guuleystay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. badi Soomaalida ayaa isla dhex maraya sax ahaanshaha iyo wadiiqada loo maray fasaxida lacagtan, waxaana dad badan ay sheegayaan in ay ku habooneed marka uu talada la wareego madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda isku diyaarinaya 4 sano oo ay horyaalaan shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin dhamaystirka dastuurka, qabashada doorasho loo dhan yahay iyo in dalka uu ka xoreeyo kooxda Al-Shabaab.